الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa in ugu horreyn u mahadceliyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Norway oo xaflad dhiirigelin u sameynaysa ciyaaryahanka la yiraahdo Yaasiin Cabdulqaadir oo nabarka todobaad u xiraa xulka qaranka Soomaaliya under 17ka runtii Yaasiin wuxuu ahaa laf dhabarkii tartankaas Soomaaliya ku metelay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waxaan ku dhiirigelinaa insha Allah inuu dadaalkiisa ka sii wado Yaasiin waa nin dhalinyaro ah ku dhashay dalka Norway markii uu dalkiisa uu yimid ciyaartooyda saaxiibadiisana wuxuu ahaa nin dhalinyaradaas wax badan ka kororsaday Yaasiin waxaan leenahay waa mahadsan tahay insha Allah waxaan rajaynaynaa sida uu naga ballan qaaday inuu uga simaado Soomaaliya oo inta halkan ka ciyaaro ka bacdi 18 oo ciyaaro Yaasiin marka uu mudan yahay in la dhiirigeliyo jaaliyadda Soomaaliyeed dalka Norway aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa sida sharafta leh ay u soo dhaweynayaan Yaasiin oo ah dalkiisa qarankiisa soo metelay idinkana aad u mahadsantiin waxa kale oo aad ugu mahadcelinayaa maama Sahra oo ah Yaasiin hooyadiis oo la joogtay bilow ilaa dhamaad dhalinyarada guud ahaan Soomaaliyeed oo meesha tagtay wada dhiirigelinaysay gaar ahaan wiilkeeda dhiirigeliyo u heeday waxaan leenahay jazaakum Allah khayr maamo ku dayasho mudan waaye aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa maama Sahra